ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo burburiyay gaadiid ay qaraxyo ku diyaarinayeen al-shabaab garaash ku yaala deegaanka Mukayle ee hoostaga degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan ayaan warbixintan ku eegaya balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad na soo follow gareyso sidoo kale tan muuqaalkan aad like gareyso ka basi wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal culus iyo duqeyn maanta ka dhacday gobolka Hiiraan oo lagu beegsaday al-shabaab howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan isla markaana ay qaadeen ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka Mukayle oo hoostaga magaalada Buluburde qoraal ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkani lagu bartilmaameedsaday garaash ku yaala deegaanka oo al-shabaab ku diyaarinaysay qaraxyo warka dowladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in halkaas lagu burburiyay ilaa 4 baabuur oo qaraxyo lagu xiray sidoo kale dowladda ayaa shaaca ka qaaday in meesha lagu laayay xubno ka tirsan al-shabaab balse ma shaacin inta ay leeg tahay tiradooda goobtaas waxaa ku halaagsamay al-shabaab fara badan oo kuwa sida gaarka ugu tababaran saameynta qaraxyada ayaa lagu yiri warka kooban ee ay shaacisay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa kale oo qoraalka lagu sheegay in dowladdu ay dib ka bixin doonto faahfaahinta natiijada rasmiga ah maadaama uu weli socdo howlgalka ka dhacay aagga Hiiraan xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan maran jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalkaas ee ay guulaha ka sheegatay dowladda federaalka ee Soomaaliya Hiiraan ayaa ka mid ah meelaha ay ka socdaan howlgallada xoreynta waana halka uu ka bilowday kacdoonka ka dhanka al-shabaab ee haatan ka socda dalka oo dhan